kulan dhex maray wasiiro arrimo dibeedka dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa looga wada hadlay xiriirka labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdirasaaq ayaa dhigiisa dalka Masar Saamix Shukri kala hadlay sii xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo horumarin lahaa iskaashiga labada dhinac ka dhexeeya. Afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Masar Axmed Xaafid ayaa warbaahinta u sheegay in kulankan sidoo kale looga hadlay horumarada kala duwan ee ka socda Geeska Afrika iyo sidii la isaga kaashan lahaa xasiloonida iyo nabadgelyada qaaradda Afrika. Wafdigan la socday wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa ka mid ahaa wasiir dowlaha madaxtooyada Soomaaliya Xasan Macalin Khaafi wa Khalid Maxamuud Ibrahim Goonima TV.